kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha doodaburatan xilliyadan kala beejkeena fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay follow soo dheh hadii aad horey inoo joogtana saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka noo share gareedo asxaabtada la wadaagto ayaga kooxda Liverpool iyo kooxda Barcelona ayaa caawa fiidiyogan qaas u yahay maadaama ay caawan waaleen aan ka hormarnay kooxda Liverpool ayaa caawa sameysay soo laabasho aan la filin kooxda Liverpool ayaa iska arkatay kooxda Newcastle ayadoo aan ognahay in sanadkii hore kooxda Newcastle la tumay labadii kulan ee home iyo awayga sanadkan waa macquul maadaama caawa la tumay home-kooda Liverpool ayaa haafkii hore red qaadatay waxaana ka qaatay kabtanka cusub ee kooxda VVD ama Virgil van Dijk oo lagu leeyahay hal gool Darwin Núñez oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa Liverpool u dhaliyay 2 gool taas oo Liverpool guusha siisay Reds ayaa caawa qaadatay 3 dhibic oo aad muhiim u ah waxayna u tahay 3daas dhibic wax walba Newcastle ayaa caawa ahayd koox aan u diyaarsanay inay guuleystaan waxaana ku muuqatay cabsi ay ka cabsanayaan kooxda Liverpool kooxda Newcastle ayaa muddooyinkii dambe ahayd koox dheesha kubad heer sare ah balse kooxda Liverpool oo u dheelaysay 10 xidig ayaa u sheegtay runta ayadoo weydiisay su'aal aysan jawaab u haynin taas oo ahayd goormee ayaa ugu dambeysay inaad iga badiso Newcastle ayaana jawaab celin weysay taas oo sababtay in gool darro meesha kala tagto kooxda Newcastle dhanka kale kooxda Barcelona iyo kooxda Villarreal ayaa dhaxmartay ciyaar aad u sareysa taas oo la iska dhaliyay 7 gool Barcelona ayaa bilowgay ciyaarta dhalisay 2 gool balse kooxda Villarreal ayaa taas beenisay iyadoo la timid bareejo 2-2 ah haafkii hore waxaa lagu kala nastay 2-2 balse soo laabashadii bilowgeedii haafkii dambe Villarreal ayaa weydiisay su'aal qaldan iyadoo Barcelona lagu sameeyay comeback balse Barcelona su'aashii qaldaneed waxay uga jawaabtay jawaab qaldan ayadoo daqiiqadii 68 oo dhaliyay goolkii bareejaha Ferran Torres oo ciyaarta ka dhigay 3-3 Ferran Torres ayaa ciyaarta bedel ku soo galay waxay ciyaarta socotaba daqiiqadii 71 Lewandowski ayaa beerka jaray taageerayaasha Villarreal iyo mucaaradka kooxda ayagoo markaa dhaliyay goolkoodii afaraad ee ciyaarta Barcelona ayaa hadda ku jirta kaalinta 3aad ee horyaalka Spain La Liga ayagoo hoggaanka looga hayo 2 points waxayna Barcelona hadda ay leedahay 7 dhibcood soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka noo share gareeya oo follow-da hanaga ilaawina saaxiibayaal